magaalada ka dhacay laba nin ciidanka asluubta ka tirsan ayaa iyagana isdilay oo shil dhex maray waxa ku dhintay meesha Fahad Salaad Xaashinin la yiraahdo waxaana ku dhaawacmay nin odayo la taagnaa Saciid Umar la yiraahdo ilaahay waxa ugu bareeyay ka dhintay taasi oo diray qoyskiisa iyo qaraabadiis iyo eheladiisiba iyo ciidanka Jamhuuriyadda Soomaaliland oo uga tacsadeynaya ciidanka gaar ahaan ciidanka asluubta waxaan uga tacsadeynaya marxuumka dhintay in ilaahay u naxariisto samir iyo iimaan dawladdu dhanna ka siiyo gaar ahaan ciidamada qaranka gaar ahaan ciidanka asluubta ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo askariga kala dhintay walaalka shaqada ay wadahayeenna gacan ku dhiglahana intuu waa lagu maqan yahay waana la soo qabanaya insha Allah sidoo kale habeennimadii xalay waxa magaalada Laascaanood ku dhintay wiil yar oo daadiisu tahay 13 jir kaasoo ka soo jeeda qoomiyadda Oromada iyadoona uu ku dhintay roob biyo dhiga oo ka daay magaalada Laascaanood gudoomiyaha shirkadda leydhka Cabdinaasir Barre oo ka warbixinaya dhimashada wiilkan yar isagoona bulshada degmada Laascaanood ugu baaqay inay ka fogaadaan khataraha korontada inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan tacsi tiiraanyada u diraynaa ehelkii iyo qaraabadii oo ka baxay wiilkii yaraa ee xalay fiidkii korontada ay ku dishay magaalada Laascaanood runtii waxa weeye waa arin naxadin leh ilmo yar oo masaakiin ah oo daayar oo soo korayay in mustaqbalkiisii uu halka ku waayay ehelkiisii iyo waa tacsiyeynayna wixii xuquuq ah ay yeelato marxuumkaas uu yeeshana shirkaddu diyaar bay u tahay inay iyadu qaado qofka marxuumka ah iyo wixii xuquuq uu leeyahay insha Allah marka maadaama anaga korontada iyadu ay ahayd wax dilay ma rabno inaanu qofka miskiinka aan muran gelino laakiin waxaan codsanaynaa in birahaasi waxyaabo badan bay keenaan mushkilada ah wayna soo noqnoqotaa waxyaabaha noocaas ah birahaasi ay keenaan ama ha ku soo dhaceen fiilo ha gooyeen ama fiilo kale hataa marka waxaanu codsanaynaa waxyaabaha aan shaqada ahayn ee magaalada ka dhex taagan ee xarkihii saaran yihiin in wax laga qabto baan codsanaynaa Cabdiraxmaan Axmed Cable TV Laascaanood